Umi waxay ku jawaabtay in iyada iyo Maki weli yihiin saaxiibo oo keliya. Sababta ayaa ahayd in arrinta qirashada jacaylka aysan weli cidina u sheegin. Laakiin Yu waa saaxiibteedii carruurnimada, waxayna si fudud uga garan kartay wejigeeda in wax gaar ah ay ka dhex socdeen iyada iyo Maki. Yu waxay tiri, carruurnimadaadii ayaan ku aqaanay, waxba igama qarin kartid. Wejigaagana eeg, yaanyo oo kale ayuu u casaaday. Weligaa sidan uma dhaqmin. Kadib Yu waxay bilowday inay ku kaftanto ay ku jeesjeesto. Intay labadooduba hadlayeen, waxaa jiray wiil kale oo meel fog ka daawanayay, indhihiisuna muddo dheer ayay ku sii jeedeen. Markaas kadib waxay bilaabeen inay ka hadlaan dabaaldegga jiilaalka. Maki wuxuu Umi ku casuumay inay gurigiisa timaado, laakiin Umi si degdeg ah ayay u diiday iyadoo xanaaqsan. Waxaan leeyahay qorshe kale ayay tiri. Markii hore waxay u muuqatay inay xanaaqsan tahay, laakiin dhab ahaantii way murugaysnayd. Sababta arrintaasina gadaal ayaa laga ogaaday. Kadib muuqaalka ayaa isbedelay, waxaana la tusay wiil Yu u qiranaya jacaylkiisa. Muuqaalka si toos ah looma muujin, laakiin Yu waxaa hore u soo dalbaday in ka badan kala bar ardayda iskuulka. Wiilkii wuxuu ku yidhi, ma xisaabi karnaa, waxaan wada aadi karnaa xafladda jiilaalka. Laakiin Yu way diiday, ma awoodo, waxaan qorshe la leeyahay saaxiibaday. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qof kale oon jeclahay ayay tiri. Nina, Umi iyo Maki dhammaantood way maqleen hadalkaas. Maki wuxuu dareemay inaysan fiicnayn in qof hadalkiisa si qarsoodi ah loo dhageysto, inkastoo Yu lafteedu mararka qaar sidaas samayn jirtay. Kadib Maki wuxuu bilaabay inuu ka fikiro xafladda jiilaalka. Dhibaatadu waxay ahayd in isdiiwaangelinta xafladda la sameeyay waqti hore, xilligaasna isaga iyo Umi weli saaxiibo ma ahayn. Maki markaas cidna iskuulka kama uusan aqoon, sidaa darteed xafladda iskama uusan diiwaangelin. Hadda aad ayuu uga xumaaday, sababtoo ah ma awoodi doono inuu waqti la qaato Umi inta lagu guda jiro xafladda jiilaalka. Taasna waxay ahayd sababta Umi u diiday casuumadiisii. Maki wuxuu ka jeclaayay arrintaas, wuxuuna islahaa, haddaan dib ugu laaban lahaa waqtigii hore, qaladkan waan sixi lahaa. Markuu arrintan u sheegay Yu, iyaduna way la yaabtay, waxayna tiri, taasi runtii waa arrin xun, waxaan moodayay inaad weli isdiiwaangelin karto. Yu waxay tiri, sidee ayaad sidaas u leedahay? Xafladda waxba xiiso ma yeelan doonto adiga la'aanta. Laakiin Maki wuxuu ku jawaabay, tani qof qaladkiisa ma aha, aniga ayay ahayd inaan hore isu diiwaangeliyo. Ugu yaraan idinka saddexdiina waad wada ciyaari kartaan. Markaas Nina waxay tiri, yaa kuu sheegay inaan saddexdeena wada tagayno? Anigu qorshe kale ayaan leeyahay. Maalintaas waxaan la tagayaa saaxiibkayga. Qof walba wuu yaabay. Saaxiibka, goorma ayaad saaxiib yeelatay? Ayay dhaheen. Nina ayaa ku tiri, mar walba wararkiina iyo xaaladihiina waan ogaadaa, laakiin markay timaado arrinkayga waxba kama ogaataan. Kadib Yu waxay weydiisay faahfaahin dheeraad ah. Nina waxay tiri, si degdeg ah ayay wax walba u dhaceen. Intii lagu jiray bandhigga xagaaga, wiil fasalada sare dhigta ayaa jacayl ii sheegtay, aniguna waan aqbalay. Kadib iyadoo kaftamaysa ayay tiri, ma rabtaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saaxiibkayga cusub? Yu iyo Umi si xiiso leh ayay u dhegeysanayeen. Dhanka kale, wiilkii hore u fiirinayay iyaga weli wuu sii eegayay. Waxay ahayd arrin la yaab leh, mana cadda wax maskaxdiisa ka socday. Kadib wiilkaas ayaa Maki gees ula baxay. Wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa inaan kula hadlo. Maki markiiba wuu baqay. Wiilkaas wuxuu ekaa ciyaaryahan xoog badan, wuu dheeraa, jir dhisanna wuu lahaa. Maki wuxuu islahaa, haddii dagaal dhaco, laba ilbiriqsi xataa ma sii taagnaan karo halkan. Ma wuxuu ka mid yahay wiilasha dadka cabsi geliya oo lacag ka qaata. Cabsi darteed xitaa wuxuu isu diyaariyay in la garaaco. Laakiin markuu indhaha furay, wuxuu arkay wiilka oo gacmaha isku dhejiyay sidii qof codsi weydiisanaya. Maki aad ayuu la yaabay. Wiilkii wuxuu yidhi, caawimaad ayaan kaa rabaa. Kadib wuxuu u sheegay sheekadiisa. Anigu waxaan ahay ciyaaryahan baseballka ciyaara. Noloshayda oo dhan hal shay ayaan jeclaa, waana baseballka. Laakiin markaan iskuulkan yimid, waxaan arkay Yu. Markii aan arkay, qalbigayga ayaa si xoog leh u garaacmay. Markii ugu horreysay noloshayda waxaan gabadh u qaaday dareen gaar ah. Markii ugu horreysay waxaan helay waxaan baseballka ka ahayn oo aan jeclaaday. Tan iyo maalintii ugu horreysay aan iskuulka ku arkay, ilaa iyo hadda waan jeclahay. Laakiin weligay kuma aanan dhiiran inaan u sheego dareenkayga. Seki ayaa yidhi, waxa kaliya ka harsan dugsiga waa qiyaastii 4 bilood. Intaas kadib waxaa dhici karta in fasaladeenu kala tagaan. Markaasna waxaan lumin doonaa fursadayda. Sidaa darteed mar dambe ma doonayo inaan aamuso. Waxaan rabaa inaan dareenkayga u qirto Yu. Waqtigu aad buu iigu yar yahay. Haddii aan si toos ah ugu tago, waxay badan tahay inay diidi doonto, sababtoo ah aniga waxba igama taqaan. Sidaa darteed waxaan rabaa inaad naga caawiso inaan isbarano. Waan ogahay inaad saaxiib dhow la tahay.
maxay kula tahay haddaad i barto iyada, aan xoogaa wada sheekaysano, kadibna aan u qirto dareenkayga. Fadlan igu casuum xafladda jiilaalka, iyuuna meesha keensana saaxiib ula noqdo. Laakiin markii si toos ah ayuu u diiday. Ma samayn karo taas, ma doonayo inaan iyu cadaadis saaro. Haddii aad wax kale u baahan tahay waan kaa caawin karaa, laakiin arrintan ma awoodo ayuu yidhi. Seiki ayaa markaas raaligelin bixiyey. Qaladkayga ayay ahayd, weligay kulama hadlin, haddana si kadis ah ayaan kaaga codsaday arrin weyn. Fikraddaasi runtii ma ahayn mid wanaagsan. Kadib wuxuu yidhi, si kastaba ha ahaatee, magacaygu waa Seiki, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo. Runtii waan ku ixtiraamaa. Marka la eego muuqaalkaaga waxaad u eg tahay qof deggan oo si fudud dadka u raaca, laakiin maanta waxaad difaacday saaxiibtinimada, codsigaygana waad diiday. Taasi waxay muujinaysaa inaad geesi tahay, runtiina aad tahay nin fiican. Markuu hadalkaas maqlay, Maki wuxuu niyadiisa ka yidhi, anigu ma ahi qof sidaas u fiican, gaar ahaan marka la barbar dhigo qofkaas. Qofka uu ka hadlayeyna waxay ahayd Umi. Maki weli wuxuu aaminsanaa inuusan u qalmin Umi. Kadib labadoodu waxay bilaabeen inay guryahooda aadaan. Intii jidka lagu jiray, Umi waxay tiri, run ahaantii xafladda jiilaalka ma xisaynayo inaan tago. Marka hore adigu ma imanaysid. Marka labaadna, labada gabdhood ee saaxiibaday hore ahaa way imanayaan. Inaan wajaho iyaga way igu adag tahay, laakiin haddana waa inaan tagaa, sababtoo ah tigidhkii waan iska bixiyey. Haddii aan lacagta bixiyo oo haddana aanan tegin, hooyaday way iga xanaaqi doontaa. Si kastaba ha ahaatee, uma malaynayo inaan halkaas ku raaxaysan doono. Wax yar ayaan cuni doonaa, kadibna waan soo laaban doonaa. Markaasay si lama filaan ah u istaagtaa, waxayna tiri, haddii la fiiriyo, xafladdu 8 ama 9 habeenimo way dhammaan doontaa. Maxay kula tahay haddii markaas kadib aniga iyo adigu waqti wada qaadano? Maki ayaa ku jawaabay, taas waa fikrad fiican. Marka xafladdaadu dhammaato, albaabka banaankiisa ayaan kugu sugi doonaa, kadibna si wadajir ah ayaan waqti u wada qaadan karnaa. Kadib way kala tageen oo guryahooda ayay aadeen. Markii Maki guriga yimid, wuxuu arkay hooyadiis oo sigaar cabaysa. Inkastoo hooyadii sigaar cabi jirtay, weligeed kuma cabin hortiisa. Mar kaliya oo hore ay sidan samaysay, waana markay aad u murugaysnayd. Hooyadii ayaa raaligelin ka bixisay, iyadoo leh, waa inaanan sidan samayn, aad ayaan u welwelsanaa. Waad ogtahay in shaqada xilliga jiilaalka ay aad u badato. Maki kama xanaaqin, wuxuu fahmay xaaladdeeda, laakiin wuu murugaysnaa, sababtoo ah markii ugu horreysay uu arkay hooyadiis oo hortiisa sigaar ku cabaysa waxay ahayd markii waalidkiis kala tageen. Wuxuu hooyadiis u diyaariyey qaxwo, wuxuuna la qaatay waqti si ay xoogaa u nasato. Intaa kadib wuxuu ka codsaday oggolaansho ah inuu habeenka 24 Diseembar saaxiibadiisa guriga keeno. Hooyadiina way ka oggolaatay. Inkastoo qorsheynayay inuu habeenkaas waqti la qaato Umi, Yu ayaa si lama filaan ah uga soo muuqatay arrinta. Iyadoo aad u faraxsan ayay tiri, ma rumaysan karo inaad igu casuuntay xafladda. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xafladda jiilaalka gurigaaga ku qaato. Maki ayaa yaabay, wuxuu isweydiiyey, yaa xafladda ku casuumay iyada. Markaas ayuu eegay Umi, isagoo garwaaqsaday in arrintan ay iyadu ka dambayso. Umi ayaa markaas u sharaxday wixii dhacay habeenkii hore. Yu ayaa soo wacday Umi iyagoo ka sheekaysanayay xafladda jiilaalka. Umi ayaa u sheegtay, habeenkaas qof kale raaca markaad guriga ku noqonayso, sababtoo ah anigu kuma raaci karo, qof kale ayaan ballan la leeyahay. Yu markiiba way fahamtay in qofkaas kale uu yahay Maki. Kadibna waxay bilowday inay ku jeesjeesto Umi. Yu waxay markaas Umi ku tiri, labadiinaba maalmahan aad baad isu jeclaanaysaan. Runta ii sheega, ma shukaansataan? Maxaad arrintan iga qarinaysaan? Umi ayaa degdeg ugu jawaabtay, maya, isma shukaansano. Waxaan rabaa oo keliya inaan waqti la qaato. Miyaan saaxiibadu waqti wada qaadan karin? Iyadoo degdegaysa ay sii raacisay, saaxiibada dhexdooda arrimahan waa caadi, xitaa adiguna waad nagu soo biiri kartaa. Yu aan waxba ka shakin ayaa arrinta ku faraxday. Waxay moodaysay in saaxiibadeed ay casuumayaan. Run ahaantii, Yu weli ma ogeyn in Umi iyo Maki is jecel yihiin. Labadooduba weli uma sheegin. Sidaa darteed, Yu waxay u arkaysay laba saaxiib oo keliya. Waxayna rabtay inay waqti la qaadato saaxiibadeed. Hadday ogaan lahayd inay is jecel yihiin, weligeed iskuma daydeen inay soo dhex gasho. Markay iskuulka gaareen, Seiki ayaa u yimid Yu. Wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa inaan kaala hadlo arrin gaar ah. Haddii aadan dhibsanayn, ma i soo raaci kartaa? Yu way aqbashay. Qof walba iskuulka joogay wuu fahmay waxa dhacaya. Waxay wada ogaayeen inuu jacayl u qiran doono. Markaas Umi ayaa tiri, miyaadan rabin inaad ogaato jawaabta ay siin doonto? Niina ayaa ku jawaabtay, haa waan rabaa, laakiin dhammaanteen waan ognahay inay diidi doonto. Yu weligeed wiil jacayl kama aqbalin. Waxay haddana ku dartay, laakiin haddii laga hadlayo hogaamiyaha fasalka oo ay ula jeedo Maki, markaas arrintu way ka duwan tahay.
mararka qaar waxay la muuqataa in Yu ay isaga jeceshahay ayay tiri. Markay hadalkaas maqashay, Umi wejigeedu si degdeg ah ayuu isu bedelay, waxaana ka muuqday hinaase iyo xanaaq. Nina ayaa isla markiiba argagaxday oo tiri, kaftan ayaan sameynayay, wax kale ma jiraan. Nina waxay durba dareentay in wax gaar ah ay ka dhexeeyaan Umi iyo Maki. Dhanka kale, Saiki wuxuu jacaylkiisa u qirtay Yu aad bay uga murugootay, sababtoo ah markasta way ku adkaataa inay qof diido. Si kastaba ha ahaatee, ma rabin inay qof siiso rajo been ah, sidaas darteed isagana way diiday. Markaasna si dhaqso ah ayuu ugu faafay iskuulka oo dhan. Halkan ayayna ku dhammaanaysaa qaybta 11aad. Asxaabta sharafta badan like noo saar muuqaalka si aan usoo badano taxanayaashan oo kale. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waad ku mahadsan tahay daawashadaada.